wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi uu xalli ka dhacay shirar aan loo kala kicin ay ku aadan maamulka Galmudug sida laga yeelayo iyo doorashada dawladda ay ka doonayso in halkaasi ku qabato. Shirka wajigiisa koowaad ayuu u dhaxeeyay wafdiga dawladda ee shalay halkaasi gaaray madaxa xukuumadda uu weelinayo hogaamiyaha Al-Sunna Macalin Maxamuud. Shirkan ayaa la sheegay inuu qaatay waqti badan waxaana si qoto dheer looga wada hadlay doorashada la doonayo in loo qabto dadka reer Galmudug inay qaataan madaxda Galmudug aragtida dawladda ay ka doonayso Galmudug. shirkan ayaa wajigiisa labaad la tilmaamay inuu ku soo biiray madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaab oo ka baxay hogaamiyaha guud ee Al-Sunna Macalin Maxamuud. warar la helayo ayaa sheegaya in madaxda xalay ku jiray magaalada Dhuusamareeb ay isku fahmi waayeen qodobada qaar ee labada dhinac ay kala wateen walina ma jiro wax rasmi ah oo soo baxay walow la sheegayo in maanta loo balansiin la sii wado. geesta kale wafdiga xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya shalay gaaray magaalada Galkacyo ayaa la sheegay in halkaas ay u gaareen xalka gaaridda mashaqadii ka dhacday 14 bishan aynu ku guda jirno magaaladaasi balse kula soo dhaweynaa oo xalay loo qabtay ay kaga hadleen arrimaha Galmudug ee haatan cakiran. xildhibaan Maxamed Salaad ayaa sheegay maruu hadlay in madaxda dawladda ay ku hayaan fargelin xoogan arrimaha Galmudug loona baahan yahay inay siidayaan. madaxweyne Xaaf joogtigii uu galiyay deegaankaas sidii dadka Galmudug ay u midoobi lahaayeen maamulkan u shaqeyn lahaa runtii waa ku mudan yahay sida hadda nidaamka uu dhigayana dastuurka dawladda federaalka ay ku dhisan tahay ee ku meel gaarka ah anagu aan haysan ayaa maamulku marka uu dhismo mas'uuliyadiisa dhismaha iyo isu keenista dadka iyo dhigidda gogasha iyo qabashada doorashooyinka mas'uulka ah dawladda federaalkana waxay ku leedahay dawr fududayna ee dawr ee dadka wax ugu meerida ma lahan taasi la ogaado madaxda dawladda federaalka Galmudug guri iyo gaari qof leeyahay ma aha waa maamul ay ku heshiiyeen 11 beelood oo deegaanka degan madax la doortayna le waxaan qabnaa marka aan ka codsanaynaa u soo jeedinaynaa inay u hoggaansamaan shuruucda dalka u yaala ee kan dawladda federaalka ay ku dhisan tahay iyo kuwa dawlad goboleedyadu ay ku dhisan qayb ay ka yihiin oo faragelinta Galmudug laga dhaafo. Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo sanadkiisa hadlay ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha Galmudug ee rasmiga ah ay u aqoonsan yihiin Axmed Ducaale Geele Xaab. reer Galmudug waa isku filan yihiin ama siyaasadda dawladda dhaxal ugu jiraan ama midda maamulka gobolka ku jiraan ama degmooyinka gobolada ha joogan degmooyinka waa ku filan yihiin inay dantooda intay isku yimaadaan siday shalaba u tashadeen hadday wax ka qaloocan yihiin iyagu inay saxdaan laakiin waxay u baahan tahay in la isugu kaadiyo ilaa maantay annaga waxaan u naqaan madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Xaab u naqaan. waxaa laga dhuursugayaa shirarka Dhuusamareeb ka socda waxaa ka soo baxa iyo sida loo qaato aragtida dawladda ay doonayso.